Inta aad joogto carrada guudkeeda, aroor kasta oo dhalata waxa aad la kulmaysaa wax kaa yaabiya. Bal eeg ninkan odayga ah. Waa khatar weyn oo bulshada laga qabtay. Waxaa halkan kugula wadaagi doonaa sida uu u qiyaanay dadka isaga oo sheegtay dhakhtarnimo been ah. Halis ilaa Soomaaliya ka jirta ayaan ka hadlaynaa maanta muuqaalkana sii faafi. Ninkan waxa lagu magacaabaa Narendra Vikramaditya. Waxa uu muddo 20 sano ah ku shaqaysan jiray dhakhtarnimo been ah. Waxa uu hadda ka howlgeli jiray cisbitaalka Mission Hospital kaasoo ku yaala gobolka Madhya Pradesh ee dalka Hindiya. Labadii bil ee la soo dhaafay kaliya waxa gacantiisa ku maqan ugu yaraan 7 qof oo uu qaliin u sameeyay, kuwaasoo geeriyooday qaliinka kadib. Halkan waxa idinkaga muuqda muuqaalkiisa isaga oo dhex socda gudaha cisbitaalka. Marka uu joogo cisbitaalka, waxa uu dadka u matali jiray sidii dhakhtar weyn oo kale. Muuqaaladan oo ay duubtay kaamarada qarsoon ayaa muujinayay ninkan sheegtay dhakhtarka oo ku labisan dharka ay xirtaan dhaqaatiirta iyo qalabka weysitada oo qoorta u suran, kolkaasoo ilbaabka ay ku sugayaan bukaanno xanuuno kala duwan la ildaran. Wax cabsi ah kama qabin in la ogaan doono. Waxauna lacag xad dhaaf ah ku qaadanayay shaar aan kiisa ahayn. Waxa uu sheegay in uu ku soo waxbartay dalka Ingiriiska iyo jaamacadaha ugu waaweyn ee London ku yaala. Laakiin mar dambe ayaa la ogaaday in uu sheegan jiray magaca nin dhakhtarnimo ka bartay jaamacadaha Ingiriiska kaasoo ay isku magac dhawaayeen. Kooxaha booliiska dalka Hindiya ayaa xiray Isniintii dhaweyd iyagoo ku eedeeyay dilka 7 ruux oo uu qaliin wadnaha ah ku sameeyay kadibna geeriyooday qaliinka kadib. Sida lagu ogaaday dabagal lagu sameeyay, waxa uu 20kii sano ee la soo dhaafay ka shaqaynayay dalka Hindiya isaga oo matalaya dhakhtarnimo been ah oo uu kaga howlgalay cisbitaallo waaweyn. Sheekada ninkan odayga ah ayaa aad loo hadalhayaa baraha bulshada, laakiin bal dalkeena Soomaaliya imisa dhaqaatiir oo sidan oo kale ah ayaa ka xamaasha. Soomaaliya waxa sanadihii ugu dambeeyay ku soo badanaya dhaqaatiirta ajnabiga ah ee u soo shaqo doontay dalkeena Soomaaliya, gaar ahaan magaalada tan ee Muqdisho. Isbitaalada ugu waaweyn ee dalka waxa ka howlgala dhaqaatiir ajnabi ah oo ka kala yimid dalalka Pakistan, Hindiya, Syria, Suudaan, Masar, Ciraaq ilaa qaar kale oo badan, kuwaasoo aanan la hubin tayadooda iyo inay yihiin dhaqaatiir sax ah. Si kastaba ha ahaatee, waa hubaal in ay dalka ka shaqeeyaan dhaqaatiir fara badan oo la mid ah dhakhtarka reer Hindiya ee aan maanta ka soo sheekaynay. Sidoo kale waxa hubaal ah wixii Hindiya ka dhacay in ay sahlan tahay inay dalka ka dhacaan. Imisa qof oo Soomaali ah ayaa ku dhimatay cisbitaalada sabab la'aan. Dowladda Soomaaliya waxa la gudboon in ay dabagasho dhaqaatiirta iyo cisbitaalada. Bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana like saar oo sii share gare.